kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhabka hadal qaybtan waxaynu ku eegaynaa Itoobiya dagaalo culus oo duqeymo ay la socdaan ayaa wali ka soconaya waqooyiga dalka Itoobiya ciidamada dawladda iyo waliba kuwa tplf ayaa isku farasaaraya isla markaana dagaal culus oo ku dhaxmaraya waqooyiga dalkaasi dawladuna waxa ay adeegsanaysaa awoodeedii ugu dambeysay iyadoo oo diyaaradaha dagaalka ay dagaalka qayb lixaad ka qaadanayaan wararkii ugu dambeeyay iyo dawladda oo guulo ka sheegatay dagaaladii ugu dambeeyay ayaynu eegi doonaa sidoo kale xiisada u dhaxaysa qaramada midoobay gaar ahaan qaybteeda xuquuqul insaanka ayaynu eegi doonaa iyo waliba dawladda Itoobiya iyo qaraarka la soo saaray ee ka dhanka dawladda Itoobiya jawaabta ay dawladda Itoobiya ka bixisay dalal iyaguna taageeray dawladda Itoobiya waan eegi doonaa xogihii ugu dambeeyay ayaynu eegi doonaa ee arrimahaasi xiisada Itoobiya iyo waliba xaaladda dalkaasi iyo halka uu wax maraya dhinacayga bidixaha fadhiga gurida lifle isaga ayaa soo eegay isla markaana ay soo mariyay xaaladda dalka Itoobiya iyo waliba saacadihii ugu dambeeyay dhacdooyinkii waqooyiga dalka Itoobiya ka dhacay guridow soo dhow aad baa mahadsan tahay ilkaase daawadayaashana waan salaamaya waa tahay bal waxa u dambeeyay Itoobiya iyo dagaaladii ka socday waan ogeyn maalmihii u dambeeyay labada dhinacba way aamusnaayeen ma jirin warar ay la wadaagayeen warbaahinta oo dagaalada ku saabsan waxa u dambeeyay shalay ilaa waxa weeye xalay iyo maartay xogihii ugu dambeeyay ee dalkaasi marka aad baad mahadsan tahay maalmihii la soo dhaafay hadalba ma jirinba waxa jiray ficil iyo dagaal dagaaladuna ilaa iyo 7 magaalo yaa inta ugu badan tuulooyinka marka laga yimaado yaa la isku hayay oo ay dhinacyadu ku dirirayeen kan shabadan marka looma haynin in guulo la sheegto ama laga hadlo ama la faano mana jirin bade guulo hadda ka horeeyay oo meesha waa lagu hardamayay dagaal adag ba ka socday kooxdii tplf ilaa iyo shalay gelinkii dambe cagta loo saaray deegaano badan yaa lagala wareegay oo ilaa iyo 6 gaaraya deegaamadan waa kuwa ay hore ugu sugnaayeen oo ay ka dagaalamayeen maalmihii la soo dhaafay oo kuwa cusub ama waxa qayb ka ah kuwii ay dib mar u qabsadeen maya waxay u badan yihiin tuulooyin oo magaalooyin muhiim ah oo waaweyn ma ah laakiin waa magaalooyin tuulooyin oo laga difaacayay kuwa muhiimka ah oo meelihii dhufeysada la iskaga jiray laga dagaalamayay weeyaan intooda badan waxay u badan yihiin gobolka Wallo deegaanada hadda ay dawladdu cagta marisay ee kooxda tplf ka saartay waxa ka mid ah deegaan lagu magacaabo Wararkii Libso Garena Marsa iyo buuraha caanka ah lagu magacaabo Gurowak dhamaantood dhufeysada ay tplf ka samaysteen cagta la mariyay waana laga saaray deegaanadan oo hadda waxa maamulaysa oo si buuxda u maamulaysa dawladda dhexe ee dalka Itoobiya waxa intaasi garab socota duqeyn aan caadi ahayn waan u malaynayo sida shimbiraha u duurayaan baaladii droonka ah farabadni waxay ka qabaan duqeymahani gudaha Tigreega xitaa u talaabeen oo meelaha hadda la isku hayay ay labada dhinac ku dagaalamayeen kaliya ma aha meelaha duqeymaha ay ka geysanayaan magaalada istaraatiijiga ah ee caanka ah ee ku taal gudaha deegaanka Tigreega ee lagu magacaabo Alamata shalay gelinkii dambe diyaaradaha droonka ee dalka Itoobiya wax soo siiyayba wali waxay galatay meena arage waxay gaala baxeen magaaladaasi oo ay duqeymo u geysteen isla markaasina bartilmaameedyo gooni ah oo iyaga u calaamadsanaa ay dhulka ku dareen kooxda tplf waxay sheegtay in meelaha la duqeeyay ay dad shacab ku sugnaayeen isla markaasina khasaare badan oo ka dhashay meelahan la duqeeyay waa lagu yaqaanaa weligoodba haddii xitaa xiradooda ugu weyn la duqeeyo waxay leeyihiin islaamo qudaar gadanayay yaa la duqeeyay weliba meesha qudaartii keeni marka si kastaba duqeyntaasay dawladdu ku bartilmaameysatay Alamata
waxaana jirta dabcan sababta loo xushay magaalada Alamaata ee deegaanka Tigreega intiisii kale aysan shalay duqeyn uga dhacay laakiin halkan ay duqeyn uga dhacay sababta marka maxay tahay wuxuu baa jira dawladda og iyo cid duqeysa ma ka hadin dawladda wali kama hadlin GP kama dhih soo hadalkii waa ku yaraadaan malaynaya hadda waxay rabtaa inaysan ku xiiqin hadalka oo ay meel hawsha ku soo hubsato duqeyntaasi dawladdu kama ayna hadlin wax ay ka sheegtay oo haba yaraatay ay guul oo sheegatayna iyo meelaha bartilmaameysatayna ma jirto tplf ta hadasho tiri meelo dad shacab ay ku sugnaayeen bala duqeeyay khasaare xoogan oo la xadla baana ka dhashay meelaha si la duqeeyay marka la isu xoorxooriyay oo la isu soo aruuriyay arintan gulufkii wajigiisii labaad ee Abiy Ahmed uu qaaday ee tplf uu ku qaaday waa kiin ogeyn mar labaad waa kii furinta tagay guulihiisii hordhac ahaa oo soo daahay dhowr maalmood jilibka la isu dhigay ee hadda dawladdu sheeganaysa deegaanadan la qabsaday ee laga sifeeyay kooxda tplf-tana waxa uu ku xigi doono deegaanadii kale muhiimka ah waxaase xusid mudan in guusha haday dhinac dawladdu ka gaadho ama deegaan lagu dagaalamay ay guusha ka gaadho in dhinacii kalena ay sitaa macnaheedu ahayn inay guul ka gaadhay deegaanadii gasheena iyo deegaanada ay dib u qabsadeen kooxda tplf-tu wali sidoodii bay u haystaan iyagana maamulaya marka la isbarbar dhigo Lalabeele iyo Gesheena iyo deegaanada yar yar ee ka hadlaynana waxa miisaan culus oo maxaan ku yiraahdaa hadda limintii ama magaalada muhiimadeedii haysta ee deegaanadii lagu dagaalami lahaa ama istiraatiijiyada lahaa gacanta ku haya waa tplf laakiin deegaanadani waa kuwa laga difaacayay magaalooyinkan iyo kuwa kale ee la midka ah ee lagu dagaalamay wahagaag aad ma santahay gurida maaliyada waxaan daawadayaasha la wadaagnay in qaramada midoobay gaar ahaan laanteeda xuquuqul insaanka ay shir isugu yeertay ilaa 50 dal oo looga doodayay xaaladda dalka Itoobiya iyo gaar ahaan tacdiyada ka dhacay sida loo wajahayo arintii dawladda Itoobiya ka soo horjeesatay oo waxa way dawladda Itoobiya waxay doonaysay in si gooni ah looga hadlo tplf deegaanka axmarada iyo deegaanka canfarta تعدية أي دولة إثيوبيا جرهان هيدا حقوق إنسان كإثيوبيا أي شكل إنك جيستين تابد كده وحلقة دولة وقوي إثيوبيا يوحي كده عيه قبل فلذها يعد كده بيسي كلن كي يضادي وأي دعدي دلال بام بكسر قيب قال كوا أعدي كوا كأمس دولة إثيوبيا أيضا جوابت وأنا من دونا بل محا أرنتي وحوي لغة دولة أو قدام بين تكسبح horta kulankan hadaynu faahfaahin ka bixino waxa lahaa golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay wadamo fara badan baana qayb ka ahaa oo kulankan ka soo qayb galay waxa laga soo saaray go'aano la xiriira xaaladda dalka Itoobiya ee murugsan waxa kulankan dabada ka riixayay ama si fiican u soo abaabulay midowga Yurub oo aan ognahay dawladda Itoobiya halka ay kala joogaan heer galbeedka iyo saaxiibadiisiiba fadhigan sidaan hore u sheegay waxa lagaga arinsanayay xaaladda Itoobiya cakiran waxaana lagu ansixiyay qaraarkii qaramada midoobay golaha ammaanka ee uu ahaa SS33 lagu magacaabi jiray yaa lagu ansixiyay kulankan ayaa lagu go'aamiyay in la sameeyo baaritaano madax bannaan oo lagu baarayo dagaaladii ka dhacay gudaha dalka Itoobiya iyo tacadiyadii ka dhacay dalkaasi Itoobiya waxa lagu abuuray kulankan guddi 3 xubnood ka kooban oo baaritaan joogto ah ku sameyn doona xaaladda dagaal ee dalkaasi Itoobiya gaar ahaan xaaladda xuquuqul insaanka tii hore u dhacday iyo tan hadda dhici doontaba maadaama wali dagaal meesha uu ka socdo kulankan waxa codeeyay 21 wadan oo ogolaaday arintan ansixiyay oo u badan midowga Yurub iyo saaxiibadiisa heer galbeedka iyo Mareykanka aad iyo aad 15 wadan way ka soo horjeesadeen oo iyaguna u badan qaaradda Afrika aad iyo aad 11 wadan way ka aamuseen oo iyaga laftirkooda u badan qaaradda Afrika way ka aamuseen oo maysan taageerin wadamada safka hore kaga jiray ee aadka u taageerayay in hawshani ay baaritaan ku sameeyay qaramada midoobay waxa kamid ah Jarmalka iyo Britain aad iyo aad Jarmalka iyo Britain waxay safka hore kaga jireen wadamada doonaya arintan in la meel mariyo ee midowga Yurubna hogaaminayay sidoo kale wadamada diiday ee arintan ka hor yimid waxa hogaaminaysa Eritrea
iyo farmaajo Soomaaliya ma dhihi kare aad ma Soomaaliya Soomaaliya matala maya saaxiibkii Abiy Ahmed yuu madaxweynaha wadanka yuu hiilinay waqtigiisa uu dhamaaday madaxweynaha uma aqoonsan hadeen aad adii fikirka ka hadlamaysid dabcan fikirkayga baan ka hadlayay maya fikirkaygaan ka hadlayaa aniga waxaan ka aaminsanahay Soomaali maanta Itoobiya u heelin lahayd oo og wixii shalay la soo maray oo og Itoobiya meeshay u taagan tahay oo ku raaxaysanaysa waxa maanta Itoobiya ka dhacaya shalay say Itoobiya inoogu raaxaysanaysa isugu keen hubinaysa awooduma anu waxaan aaminsanahay dadka Soomaaliyeed badidiisu awoodun bay leeyihiin ay isugu hubeeyaan Itoobiya sabab ay hadda u taageeraan oo ugu naxaan oo ay waliba ugu heeliyaan meesha ma taalo marka fikirka aaminsanahay dad badan oo Soomaaliyeedna ila qabaan yaa kaas ka kale ee ka soo horjeeda ee Soomaaliya maanta u heelinaysa Itoobiya xaaladii Soomaaliya shalay ku jirta oo qaramada midoobay miiska u garaacayso leh yaan Itoobiya arrimaheeda xuquuq insaanka iyo dagaalkeeda laga hadlin Soomaaliyada taa oranaysa iyo Soomaaliyada dadka Soomaaliyeed ee muwaadiniinta ah ee wadaniyadu ay dhabta ka tahay ka dhax guuxaysa waa kala labo sababtan ku leeyahay farmaajo yaa saaxiibku u heeliyay anigu ma ogi uma Soomaaliyeed oo maanta jecel in Itoobiya arrimaheeda looga heeliyo fagaarayaasha caalamiga ma ogi haddii aysan wadaniyiinta cusub ayna ahayn laakiin gulada marka la fiiriyo dad badan waxay aaminsan yihiin Itoobiya waa sax xilligii tplf Soomaaliya faragelin badan bay ku haysay laakiin Abiy hadda intii uu yimaaday faragelinta ayaa laga daayay tplf waxay la macaamuli jirtay maamul goboleedyada hadda se Itoobiya waxay la macaamushaa dawladda federaalka colaaduna de mar bay ahayd waana dhamaatay dalalkuna markay daris yihiin xiriir fara badan baa waxa weeye iyo iskaashi fara badan inuu dhaxmarayo waxa weeye waa wax oo dhacda maadaama ay daris yihiin marka la fiiriyo waxa ka wada shaqayn kareen amnigii ganacsiga iyo socodkii bulshada iyo xiriirkii markii laga soo tago wixii hore ee dhacay dhibaatooyinkii iyo dhacay hadda dad badan waxay aaminsan yihiin Itoobiya inaysan wax faragelin Soomaaliya ay ku haynin taa bedelkeedana ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu qaatay go'aan ah in qaabkii hore ee xilligii tplf Soomaaliya loo dhaqmo jiray qaab ka duwan in loo dhaqmo marka inta markaan kaga soo tagno bal wadarta guud waa 48 dal 22 waa taageereen qaraarkan in baaritaan madax banaan lagu sameeyo wixii Itoobiya ka dhacay 15 ka soo horjeesteen 11 waa ka aamuseen Soomaaliya waxa ku jirta iyo Eritrea ay hormuud u yihiin dalalka ka soo horjeestay arintan Itoobiya ku taageeraya in maarad arintan ay tahay qaraar Itoobiya ka dhana oo aan loo baahnayn noowad marka aad ba maasantahay hal arin ba hoosta u baahan in laga xariiqo Itoobiya shalay hadii iyo Soomaaliya ay colahaayeen maantana wali sidoo bay colu yihiin sababta ah waxa lagu dagaalamay la isku hayay dad iyo dhul Soomaaliyeed ba ahaayeen walina sidii bay Itoobiya u haysataa dad badan ba wali aaminsan in Itoobiya ay faragelin ku hayso Soomaaliya oo aysan doonaynin naseexeeda Abiy Ahmed iyo Wararkii iyo farmaajo iyaga danahooda siyaasadeed iyo gaashaan buursigooda si gooni ah uga heshiin kara si gooni ah uga saaxiibi kara si gooni ah u wada socon kara laakiin qadiyadii Soomaaliyeed ee taalay geeska Afrika ee uu Ingiriisku ka tagay ee dhul Soomaaliyeed ay Itoobiya wali gacanteeda ku jirto sidii bay u taagantahay meel Soomaaliya iyo Itoobiya intay ku heshiiyeen ay ka yiraahdeen maxaan ku yiraahdaa iyo dadka Soomaaliyeedba ay xitaa dadka Soomaaliyeed Itoobiya ku hoos nool ay ku ogolaadeen Itoobiyaanimada hadii ay jirto arintaas way dhamaatay waa la xaliyay waa wadamo darisa waa wadamo u baahan inay horumarka iyo nabadgelyada ka wada shaqeeyaan iskaashi kale ka shaqeeyaan laakiin inta dadkii Soomaaliyeed ee gobolka ku nool aan waxba laga weydiinin inay yihiin Soomaali iyo inay yihiin gobol goonidooda u taagan inay yihiin Itoobiyaan inta dhulkii Soomaaliyeed ee deegaanka Soomaalida ay Itoobiya haysato anu ma aaminsan inay colaad u dhamaatay haddaan inta ka soo gudbo nimankan saaxiibada ee xulufada horta wali waa sidoodii aadiyaad waxaana jirtay arin ay iyagu ay garwadeen ka ahaayeen waa Wararkii Abiy Ahmed iyo farmaajo meelay u gaadhana wali way wadaan taageeradii ay qaarkood ay galbeedka ka haysteen way ku waayeen ilaa haddana meel maxaan ku dhahay iyaguna dadaalkooda dhankooda way wadaan waxoodii saddexda nin saaxiibada maxaan ku yiraahdaa dadka kale ee ka soo horjeedayna iyo heer galbeedkiina iyaguna dadaalkooda way wadaan dagaalka Itoobiya ka socdana waxyaabaha ugu badan ee uu maxaan ku yiraahdaa salka ku hayay la isku maandhaaf arrimahan isxulufaysigan
iyo maxaan ku idhaahdaa casharradan laga soo qaadanayo dictatoriga ugu weyn geeska Afrika Wararkii baa kamid ah waxyaabaha la isku diiday marka inta ka soo gudbo wadamadan faraha badan maxaan ku idhaahdaa ku kala qaybsamay qaar badan baa ka aamusay wadamada ka aamusay waxa hogaaminaya Senegal Malawi Sudan waxa kama dhihin iyagu way ka aamuseen waxa meesha ka socda bay miiska ka dul fadhiyeen laakiin laftirkooda hadii ay aamuseen waxba ay koodhan waayeen taa micnaheedu looma qaadan karo in raali ka yihiin waa loo qaadan karaa horta dadkan Afrikaanka inta badan waa la biilaa aad iyo aad midowgii Yurub way biili jireen meesha waa fadhiyaa marka way cabsadeen oo ma diidi karaan oo ma dhihi karaan qadiyada waa qadiyada Afrikaan xitaa hadii Abiy Ahmed ay taageersan yihiin Ethiopia ay taageersan yihiin ma dhihi karaan qadiyada waa qadiyada Afrikaan maxaan ku dhahdaa annaga madax banaan waxaanu sameeynaa Ethiopia hal daayo yaan faragelin lagu sameeyay ma dhihi karaan oo biilkii waa laga goos iyagu barta Abiy Ahmed wadadu maray yay la maray way dhagaaday gumba ka soo bilowday khilaafka heer galbeedka iyo Abiy Ahmed iyo hadallada ay u soo jeediyaan oo diiday marka way ka aamuseen way ka gaabsadeen way ka afgoobasadeen Eritrea iyo Soomaaliyana safka hore ay kaga jiraan inay difaacaan Ethiopia Soomaaliyana dhihina farmaajo midowga Yurubna waxa weeye iyagu galkayba seefta uga baxsanayd arinta in dhinac loo tuuro yay rabeen marka la isku soo xooriyo qaraarkani wuu hirgalay aad iyo aad saddex xubnood oo guddiga la magacaabay oo baaritaano joogto ah ku madax banaan baaritaano joogto ah ku sameeya waxa ka dhacaya gudaha dalka Ethiopia shaqadoodana muddo sanada ay socon doontaa aad iyo aad marka hawshaasi sidaas ay ku dhamaatay sidaas ku ansax noqday Ethiopia iyadoo raali ka ahayn fad ama hafadina waa lagu fadsiin bariijinaya konfereedka aad iyo aad waa la fadsiiyay oo uu hirgalay waa tahay Ethiopia dawladda Ethiopia oo qaraarkan iyadu markii horeba ka walaacsanayd oo u arkaysay inuu yahay mid iyada liddi ama ka dhan aha maxay iyadu kaga jawaabtay arintan iyo talaabada ay qaaday golaha xuquuqul insaanka qaramada midoobay nin la yiraahdo taye dande nin lagu magacaabo oo u hadlay dawladda Ethiopia xaaladii markii la ansixiyay ee Wararkii dhinac u dhacday iyo afka furtay aad iyo aad maya wuxuu soo xasuustay uu hadlay wuxuu soo xasuustay oo markii ugu horeysay uu soo hadal qaaday tacadii ka dhacay jeelogaadeen marka anagu markii dhibaatada ay dawladdu haysto meel la soo horqaa markay balaaya u timid ee miiskii loo garaacay ee xoog lagu meelmariyay hawshii ee baaritaano in la sameyn doono madax banaan oo qaramada midoobay hogaaminayso sinaba ayna ku diidi karin Ethiopia tabar ay ku diidan aysan lahayn ay miiska soo fuuleen wuxuu yiri way wanaagsan tahay in xuquuqul aadanaha laga hadlo oo loo doodo aad iyo aad laakiin maxaa la aamusnaydeen xilligii taliskii tplf 27 sano oo Ethiopia maamulayay isagoo hadalkiisa sii wata wuxuu yiri waxaan filayaa inaad xasuusan tihiin wixii ka dhacay jeelogaadeen hadda ogow meel dhawada ay lahaayeen niman tplf oo weli buraha ka dagaalamayaan maxkamadaynayna hal mar warbixintii iyo maxkamadii go'aankii ay soo saartay ee ay ku sheegtay inay dambiye ku heshay nimankaasi tplf oo 25 gaarayay hal mar lama xusin wax tacadi oo ka dhacay deegaanka Soomaalida aad iyo aad dambiyada nimanka loo haystay waxa la waxay ka dhaceen xabsiye ku hareeraysan Addis Ababa iyo Benshangul iyo Oromiya iyo meelahaas xabsiye ka dhacay oo dadka ciidaha lagaga siibay yaa loo haystaa baa leeyahay kuwii siliga intii qoorta loo geliyay geedaha laga soo laalaadinayeen kuwii iyagoo nool aasay iyo kuwii iyaga cabaadaya la aasayina maxaan ku raacay kuwa hadda jooga qaarkood ama naafada ama waalwaalanba aad u weyn hal mar lama soo hadal qaadin maxkamadda Ethiopia ma soo hadal qaadin hadda miskiin baa miska la furan maqli jiray aad iyo hadda se markay xaaladii ay ku cuslaatay iyaga ee lagu yimid way soo xasuusteen inaan lagu baxsanaya jeeroyada wuxuu noqday wax lagu maxaabsado aad iyo sidisaba dadkii dhibaatada ku dhacday kuwa cadaalad wax ugu raadinaya haday jiri lahaayeen aad iyo maanta ma dhacdeen in deegaanka Soomaalida kuwii la dhibaateeyay
iyo kii qiranayay inuu iyagoo cabaadaya uu aasay inay caadi u wada noolaadaan oo aysan cadaalad helin oo iska rab socdaan ma aysan dhacdeen haddii ay jiri lahayd innaba wax ka cadaalad sameynaya haddii ay jiri lahayd innaba wax ka run sheegaya in jil ogaadeen iyo wixii ka dhacay la rabo in wax laga qabto ma dhacdeen kii dulmanaha iyo kii dulmiyeyba inay maanta iska rab socdaan waxaana xusid mudan inta badan saraakiishii hogaaminaysay liyo booliiska ee dhibaatada geysatay iyo kuwii militariga Itoobiya hogaaminayayba in Abiy Ahmed iyo in Cabdi la shaqeynayaan marka hadii laga run sheegayo oo mar raba ay tahay in si dhab looga run sheegayo jeerogaadeen wixii ka dhacay oo ayna ahayn in lagu maxaabsanayo markay xaaladdu kugu cuslaato qolada jijiga joogtana markii ay dan leeyihiin bay soo kaciyaan dadkii dhibaatada ku dhacday oo laga oohiya meelahaas ma arkin hal qof oo xitaa dhakhtar loo qaaday oo la yiri hala soo daweeyay hal gabadh baa la sheegay waayihii isbedelka cusbaa tiina ma sheegi kara in si dhab loo geeyay iyo in aan loo geeyin laakiin madaxweynuhu ballan qaaday hal qof oo kale oo ama magdhow laga siiyay wixii ku dhacay ama dhakhtar laga geeyay ma jirto marka qadiyadan jeelogaadeen iyo dhibaatada dawladda Soomaalida ka dhacda waxay noqotay wax lagu maxaabsado oo lagu awrkacsado kolba ninkii ay xaalku ama dan leh oo hore u sii wado وهاك أدو ما سنيه جرد وضيال أنت صيان كسر جبجبيننا قضب كان أن كويجينا حالات دلك إثيوبيا دجالدي يقدم بيجي وقوي دلك سي كدعية يسود وكالته مرنكا دولة إثيوبيا إيو قلاع حقوق الإنسان كأقرب من المدوبي وحي ورر يا معلومات كسر كذا حالات دلك إثيوبيا دي بيجي إن كل ذاك الدنا هذا سوى حد لنا هاي صاحب مركز جوتان حل جايين تهيب هايدين وينك سنة